السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح wanaagsan daawadayaal idilkiin baa maqal walba aad joogtaan iyo si walbaad oo xaaladiina ay tahay waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu waaweynaa suuqa oo hadaan kala kala socotaan channelka Gold TV. maanta waxyaaba ugu weyn waxaa Paul Pogba, Mino Raiola, Gnabry iyo ciyaaryahan Sane ayaana kamid ah. ciyaaryahan khadka dhexe Manchester United iyo xulka Faransa ayaa markaana ka tagi doona Manchester United sidii la xaqiijiyay waxaan uu ku biiraya mid kamid ah kooxaha ciyaaryahankan waxaana Manchester United ku rabtaa lacag dhan 150 milyan ay ku rabtaa 6 sano jirkan oo gudaha garoonka Old Trafford. ESPN ayaana sheekadani daabicaysa wakiilka caanka ee Mino Raiola ninka lagu magacaabo qorsheynaya sida Manchester United macallinka Ole Gunnar Solskjaer oo ugu bedeli lahaa kooxdan maadaama ay labadani shakhsi ay isku dhaceen. ugu dambeyn markaa wuxuu rajeynayaa in kooxda uu ciyaar macallinkan uu ka bedelo. Sky Sports ayaana sheekadaasi soo xiganaysa. Ole Gunnar Solskjaer iyo macallinka lagu magacaabo Mino Raiola ayaa horaan isku dhacaas oo kale ciyaarahan Paul Pogba kadib markii labadani shakhsi ay hawada isku mariyeen waxyaabo kala duwan. ugu dambeyn wakiilka caanka ee Mino Raiola ayaana qorsheynaya sida uu Manchester United ugu diri lahaa Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer waa hogaamiyaha kooxda Manchester United kulamada ugu dambeeyay xitaa Chelsea ayuu soo garaacay. Sky Sports ayaana sheekadan faahsan in labada shakhsi aad iskugu dhacsan yihiin. wararka kale ugu weyn waxaa kamid ah Manchester City iyo kooxda Bayern Munich ayaa Manchester City waxay la hadli doontaa Bayern Munich oo ku aadan Sergio Gnabry inay ka soo qaadato garoonka Etihad ay ku soo biirso 14 sano jirkan ayaana qayb ka xulka Germany waxayna rabtaa Manchester City inay bedel ugu dhigto Leroy Sane oo kaasoo muddo garoomada kaga maqnaan doona dhaawac. Leroy Sane waxa aad u baadigoos Bayern Munich. City waxay rabtaa ka faa'iideysi inay ka faa'iideysato Bayern Munich xiisay qabto Leroy Sane inay ka soo qaadato ciyaar Sergio Gnabry oo kulamada ugu dambeeyay shabaqada soo gaaray. Leroy Sane sano jirkan ayaana macquul tahay inuu ku biiro horyaalka Bundesliga gaar ahaan kooxda Bayern Munich. San ayaana sheekadaas maanta daabicaysa. Chelsea macallinkiisa Frank Lampard ayaa markaana aad u xiiseynaya in uu tartanka Champions League oo meel wanaagsan uga gaaro xil ciyaareedka. Telegraph ayaana sheekadaasi qoraysa. wararka ugu weyn suuqa waxaa kamid ah maanta Real Madrid ayaa markaan aad u eeganaysa ciyaaraha Manchester City qadka dhexe ugu ciyaara Philippe Foden. ciyaaraha Philippe Foden ayaa kamid ah ciyaartooyda ugu daayar ee kooxda Manchester City ee jooga. Foden ayaana markii ugu horeysay kooxdani oo hogaamiyay Pep Guardiola u saftay isagoo kaasoo akademikada ka soo baxay kooxda Manchester City 19 sano jirkan ayaana Premier League ku soo bilowday kadib markuu bandhig cajiib ah sameeyay. Real Madrid ayaana u aragtay ciyaaraanka playmaker-ka ama qadka dhexe ka ciyaara inuu ku habeeyo garoonka Santiago Bernabeu sida ay saag daawacaysa wargeysyada ka soo dalka Isbaanishka Los Blancos waxay doonaysaa 66 milyan ku qarash galayso ciyaaraankaasi u hesho bedelka qadka dhexe ee ciyaaryahanada kala Luka Modric iyo Toni Kroos kuwaasoo da'da ka daba timaanayso ciyaaryahankan ayana u arkaan in ay waqti siiyaan maadaama uu ka mid yahay ciyaartooyda da'yarka ee kooxda Manchester City jooga. sheekooyin kalena waxaa kamid ah daawade kooxda RB Leipzig ninka lagu magacaabo daaficida Diotian ayaa markaa weli aad waxaa loola xiriirinayaa kooxaha dhowr ah oo kamid ah Barcelona iyo Arsenal kuwaasoo xadidkooda uu yahay inay soo qaataan ciyaaryahanka RB Leipzig daafac ugu ciyaara. Arsenal ayaa hore ugu taamisay daafac ay soo qaaday balse markaan Barcelona ayaa ku soo biirtay loolanka lagu jiro ciyaaryahan Dayot. waxaa sidaas qortay RMC Sports waxaana soo xiganaysa Goal.com ayaana sheekadaas soo xiganaysa. Chelsea ayaa markaana weerar ku ah kooxda Birmingham City ciyaaryahanka 16 sano jirka lagu magacaabo Bellerin laakiinse waxay dagaal adag kala kulmaysaa kooxaha Manchester United, Barcelona iyo Real Madrid kuwaasoo aad u xiiseynaya xidiga reer England kaasoo xulka 17 sano jir England qayb ka Goal.com ayaana sheekadaas faahfaahsan saaka. sheekooyinkaas ayaana ugu weynaa daawade haddii idin raaciyana kulamada habeenkii xalay dhacay tartanka Champions League naadiga Liverpool guuldar ayaa dusha loo saaray 1 gool eber ayaana dusha loogu saaray. Borussia Dortmund 2 gool iyo 1 gool ayuu adkaatay naadiga Paris Saint-Germain. caawa kulamo xiiso badan ayaa jira. Atletico Madrid xalay hadii ciyaartay caawa Atlanta iyo Valencia ayaa wada ciyaari doonaan 5 saac habeenimo isla 5 saac Tottenham Hotspur iyo RB Leipzig. laakiin kulanka ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa jiri doona oo Manchester City iyo West Ham United caawa dhexmari doona 4 saac bar ayaana ciyaartaasi soo gali doontaa. daawade waa kulamada caawa jira tartanka Champions League iyo horyaalka Premier League oo hal kulan laga ciyaari doono City iyo naadiga Tottenham Hotspur. maasantiin la socodka warkeena waan idinkaga mahadcelin haddii bartay kugu cusubtaa subscribe like iyo share.